Tijaabi sida inaad tahay dhagool. Tijaabi oo TV-ga hortiisa fadhiiso, TV-gana shido, codkana iska xir. Kaliya nus saac, waxaa laga yaabaa inaad garato nimcada dhagaha, taas oo aad u isticmaasho wax ku horseedi kara cadaab maalinka qiyaamaha. Maalinkaas oo dhagaha lagu shubi doono maar holciiso. Yaa Allah! Hadda oo aan joogno adduunka, ayaan ugu adkaysan karin dhagaheena inay galaan qashin ama biyo. Sidee noqon kartaa maar la holciyay midkaagaan heesaha dhagaystow? Alle ayaa kugu nimceeyay dhagahaaga, isaga ayaana ku siiyay, isaga ayaana kuu diiday inaad u isticmaasho wax isaga caragelinayo. Ma waxaad ku caasinaysaa wax uu ku siiyay? Mise waxaad naftaada u horseedaysaa inuu Rabbiga kuu caroodo? Isaga ayaa ku siiyay, wuxuuna awoodaa inuu ilbiriqsi kaaga qaado. Wuxuu kaloo awoodaa inuu kaa qaado adigoo u isticmaalaya wax isaga caragelin kara. Sabab adigoo og in heesaha jannada ay qurux badan yihiin, quruxdoodana aan la tilmaami karin, ma waxaad ku raaxaysanaysaa heese adduun oo xun, weliba ku horseedayo cadaab, adigoo ka tegayo wax weligood xalaal ku ahaanayo, kana qurxoon wax adduunka laga helo. Xisaabi naftaada oo sawiro cadaabkaas xanuunka badan iyo nimcadaas quruxda badan Rabbiga dartiis. Allah wuu jecel yahay addoonkiisa u soo laabtay isaga. Rabbigaana u laabo adigoo ka tegayo xumaantaas. Qofka dembiga ka toobad keena waxa uu la mid yahay qof aan dembi lahayn.